barnaamij TV ka baxay oo tabarucaad lagu aruuriyo ayuu wariyihii dadweynaha u soo bandhigay xaaladda bukaan u baahan in lagu sameeyo qaliin $157 ku baxayso. bukaanka ma awoodi karin inuu lacagtaas iska bixiyo. wariyihii wuxuu bilaabay inuu ka jawaabo wicitaanada dadka raba inay wax baxsadaan. dadka soo wacay waxaa ka mid ahaa wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Maxamed, kaasoo sheegay inuu bukaanka ku tabarucay lacag $2 ah. wariyihii ayaa yidhi, ma $2 oo keliya? wuxuu ku jawaabay, anigu baagamuunda ayaan ahay oo ma shaqeeyo. $2 ayaa ahayd hantida keliya ee aan maanta haystay, waxaanan jeclaystay inaan sadaqaysto. qofkii ku xiga ee barnaamijka soo wacay wuxuu sadaqaystay $8,000, wuxuuna yidhi, 4,000 bukaanka ayaa leh, 4,000na wiilkii $2 bixiya hala siiyo. mid kale ayaa isna baxsaday $10,000, wuxuu yidhi, 5,000 bukaanka ayaa leh, 5,000na wiilkii $2 baxsaday. sidaa ayay ku socotay oo qof walba oo lacag baxsaday wuxuu u kala qaybiyey bukaanka iyo wiilkii $2 baxsaday. dhammaadkii barnaamijka markii la gaaray, lacagtii bukaanka qaliinka loogu samayn lahaa way dhammaystirantay. wiilkii $2 shaqaystayna lacag $50,000 ku dhow ayuu helay. barnaamij kale ayaa wiilkii lagu casuumay si lacagtii uu helay loogu wareejiyo, waraysina looga qaado. intuu barnaamijku socday waxaa TV-ga soo wacay 10 shirkadood oo raba inay wiilka shaqo siiyaan. dulucda dhacdadan waxay tahay, haddii aad wax sadaqaysato, Ilaahay wuxuu kuugu bedelayaa wax ka khayr badan, wuxuuna wax kaa irsaaqayaa meel aadan filanaynin. nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, maa naqasad sadaqatun min maal, oo micnaheedu yahay sadaqadu maalka ma yarayso. subax walba markaan guryaheenna ka soo baxno, intaanan gaarin goobaha waxbarashada ama shaqooyinka, waxaa laga yaabaa inay indhaheennu qabtaan dad danyar ah oo jidadka hareero fadhiya. adiga inay caloosha kuu buuxda ayaa laga yaabaa, ama aad rajo ku soo toostay, laakiin dadkaas masaakiinta ah oo qaarkood kuwa iyaga camal liita ka soo tagay, rajada keliya ay qabaan waa inaan gacanta u fidino oo shilimaad yaryar oo xaggeenna uga yimaada aan siino. u yeelo dareen xataa haddaad aragtid qof meherad yar ama miis ay alaab yari saaran tahay ku shaqaysanaya. wax ka iibso xataa haddaadan u baahnayn, waayo waxaa laga yaabaa in halahaas yari ay nolol u abuurto carruur, waayeel ama dad kaloo jilicsan oo uu qofkaas u shaqaynayo. haddaba daawada, aragtidaada inoo reeb. maxay bulshadu ka baran karaan sheekadan? muuqaalkan waxaa laga yaabaa inuu asxaabta kala anfaco, waxna ku qaataane inoo sheer gareeya.